laga yaabaa ilaah waa dhimashada haya sheekha caawa lifekiisa way waa cimaamidkiisii lacagtii ugu daaweyn lahaa loo aruurinaya sheekh xabiib allah barakeeye walaashay sundis muuqaalkan hadduu soo gaaro adoo walaalkaaga caafimaadkiisa ka fikirayo walaashay caawa lifekaaga baadjo habeen damba ka dhig kala ku ciseeyay muuqaalkan adiguna bismiillah ka saaray qalab raadiya sundus ayaan leh laafkeeda xalay waxyaabo aniga shaki sundus ayaan leh laafkeeda xalay waxyaabo badan oo aniga shaki igeliyay oo intaad ku ogaan doontid ayaan kula wadaagi doonaa iyo maleelay meesha uu ku dambeeyay habi axmed midda ku dhacday wax kastana fiidiyogan ayaa ku ogaan doontaa horta marka koobaad laafka sundus waxaa leenahay sundusay walaalay Soomaaliga ilaaha ku baro oo ina raaxada noogu celisi qodob aan ka fahnaa ilaahay waa yariyahay laakiin muhiimadda ayaa waxa ay tahay waxa aniga dhagayga ay ku dhaceen sundusay shak weyn ayaa aniga ugu jiro oo ah waxa aad noo sheegaysid boqolkiiba waa qalam ii raadiya qalam alabdafur weyno soo bax meesha ka daawo sheekha kan uu ahaa akoonkii cusub ee sundus ayaa la caawa samaysatay isla caawa waxa ka dhex qaday daahir cali soo miyaan la ooyaa wallahi ana la ooyin oo billahi ana la ooyin oo tallahi ana la ooyin sheekh walaalka ah oo in adeerka ah oo Soomaaliyeed oo sakaraad ah oo naftu ay ka baxaysaba waxa uu ku yiri oo uu ka bariyo walaal caawa ii baaji garyaqaan buu ahaa kii u baajinayay wiilkii kaliya waxa xanuunaya alla dadku kala nasabsana alla dadku kala gobsana alla dadku marka Soomaalinimada ay tahay ya Soomaalinimada adduunka wax ka fiican ma jirto garyaqaan isagoo garanaynin wiilkii uu jaawale dhahayay qabiilkiisa iyo cid uu yahay toona ee kaliya laga hayay uu daraadii buu life kooga baaqday adiguna sheekh naftu ay ka baxayso oo walaalka ah oo ku codsaday xataa intuu ku soo أنا براء في الدنيا إيباجي يوتيوب كان لساني النفط أيها بحيسة إيباجي بدو باجي مويلي سين كل أويا أديك مركا مانتا سين أديك كل أويا أديك كولا دنقدا أديك بوا ولا دنقوا إذا الشيخ ورالك نفط أيها بحيسة لبعض أنجر بايك صوب بحي كانسر با أيان سكر شكل سنة يقولي إلهي وحيد مركا سنة حارسة تنبان إذن كان إذن حارسة نيا Soomaali oo dhan waa isku soo jeedisay cadaawad cusub baad samaysatay danteed garad qof ayna hadahayna waad sheegto caawad adeysay qof kale hadduu ahaan lahaa oo Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inuu caawa sheekha daraadii life-ka u baajin lahaa habeenta mar waa lagu garab istaagi lahaa hadda isla youtube-kii hadduu ka dhex qadaynaya daahir cali sow hadda yaa kula ooyaya Soomaali oo dhan wejigaaga saxdaa bay aragtay wiil yaroo jabra la yidhahdaa dabada kaa riixaya oo ku turanturinaya danka malihiin buu ku leeyahay kibirka waa lagu jabaa sheekhan danka malihiin sheekhan waxba nagama gelin teenaa ka muhiimsan adaa ka muhiimsan youtube-kaaga naftiisa ka muhiimsan buu ku leeyahay waan dareemi karaa ani seeb kuula ooyaa waan hadda xaqaaga kuugu raadiya say Soomaali hadda kuu garab istaagaysaa sidee baad hadda heer ku gaadhaysaa qof walaalka ah oo baahan oo sakaraada xaalad caafimaad oo noot ah sakaraadaha dhakhtar galaya qalliin galaya waxa uu ku yiri walaal ha iga jiidanin 180,000 oo qof baa ku daawanayso isaga daawan lahayd ninka maanta 180,000 oo qof oo isaga daawan lahayd isaga u tagi lahayd shaashada u garaaci lahayd wax u diri lahayd in aan baan nahay ay weydiinayaan aniga sababay dadku ugu tageen iyadoo isaga ugu tagi waayeen waxaas aniga ay weydiin waxba igama gelin bini aadamka shaydaan baa ku shaqaysta haddayna iyadu soo gasheen asaga ayay u tagi lahaayeen aad baan uga xumahay falkaad caawa samaysay gebi ahaanba waxa uu cirib tirayaa 5 sano 6 sano 7 sano ee waxii wanaagsanaa samaysay oo dhan caawu baabiinaya bini aadam baan nahay xaqiiqada ku sheegaya waxaana caawa samaysay gebi ahaanba waxay baabiinaysaa wixii asxaan lagu samayn lahaa oo dhan aad baan uga xumahay sheekha sida xun ee loo dhamay akoonkii cusub ee sundus ayaa okay abti baa shada yaa diyaar ma tiish ashada bari bululay abti baa shada